mudane habeen wanaagsan kuna soo dhawow telefishin habeen wanaagsan aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadcelinayaa telefishinka qaybta jidda u joogta oo habeen wanaagsan mudane adigoo mahadsan ugu horeyntii waxaad inooga warbixisaa aad inoo soo koobtaa waxqabadka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad guddiga jaaliyadda wuxuu ka shaqeeyay magaalada Riyaad 20 sano in ka badan wuxuuna qabtaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed ijtimaaci iyo dhaqdhaqaaq waxqabad dadka dhibaataysan ku dhibaataysan magaalada Riyaad waxaan ka qayb galnaa tartamo sporti fan waxaan maaragtay diyaarinaa kulamo bil walba guddiga waxayna maaragtay dadka agoomada ku nool Riyaad waxaan kaalmaynaa dadka ku xiran xabsiyada iyo maaragtay dadka sharci darrada oo meelaha lagu qabsanayo waa ka warhaynaa waa dabagalnaa marka haddii aanu soo qaadano tusaale ahaan tartamadii aad ka qayb gasheen oo ay ka mid ahaayeen qaarkood kuwa hidaha dhaqanka iyo suugaanta oo wadamada carabta jaaliyadahooda iyo qaar ka mid ah wadamada Afrikaanka jaaliyadahooda markaasi aad kala qayb gasheen marka maxay ahayd kaalinta jaaliyadiinu ay ka gashay halkaasi ama ay ka keentay jaaliyadda 3 jeer ay ka qayb gashay tartamo oo hidaha dhaqanka iyo midda midda dhaqanka oo 2002 aan ka qayb galnay waxaan galnay kaalinta koowaad midda ugu dambeysay oo 2010 aan ka qayb galnay oo hidaha dhaqanka iyo heesaha anaga waxaan ugu qayb galnay heeso kaalinta labaad ayaan ka galnay qayb libaxaan ka soo galnay marka wax la taaban karo oo xilligan aad qabteen ama aad u qabateen danaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad maxaad tusaale ahaan naga siin kartaa anaga tusaale ahaan waxaan soo qaban karnaa markii ugu horeysay jaaliyadda Riyaad waxay qayb libax ka qaadatay dadkii ku soo dhaawacmay hotelkii Shamo oo ay qayb libax soo dhaweyn iyo taakuleen u fidiyeen waxaa hadda maaragtay abaaraha ka dhacay wadanka qayb libax ka qaateen ilaa $8,000 ay u aruuriyeen ayagoo ugu tabarucay Soomaaliya taas haddana waxaan bishaan ka qayb galaynaa tartan sporti oo jaaliyadaha magaalada Riyaad ku nool inaan qayb iyo guul ka soo hoyana rajaynayna okay marka tartamadaasi iyo waxyaabaha kale aad qabanaysaan gacan intee leeg ayaad ka heshaan safaaradda Soomaalida ay ku dhaqan safaaradda Soomaalida ee wadanka Sacuudiga safaaradda maaragtay Sacuudiga oo joogta magaalada Riyaad iyo jaaliyadeeda aad maaragtay wada shaqayn fiican ayaa naga dhaxayo gacan hiliyo waxaan ugu baahno waan keenna safaaradda ugu weeyay safiirka Ahmed Abdallah iyo xubnaha meesha joogo maaragtay Amniiko iyo Abshir Adal iyo qonsulka Adudi kaalin fiican iyo wada shaqayn fiican naga dhaxayso marka ma jiraan wax xiriira ama markaasi ama iskaashi aad la leedihiin jaaliyadaha kale ee markaasi adduunka anaga jaaliyadda Riyaad waa jaaliyadda kaliya oo maaragtay xiriir dibadda leh oo maaragtay jaaliyadaha ku nool Yurub Mareykanka markasta waxaan isdhaafsanaa maaragtay iska warqabin waxaan hadda ku tala jirnaa haddii ilaah noo talagalo inaan ku cazino jaaliyadaha Yurub inay yimaadaan magaalada Sacuudiga ay ka qayb galaan tartan sanadka soo socda saas ayaan qorsheynaynaa inkastoo haddana aad ogtahay in qarashaad badan uu markaasi suurtagal ay tahay inuu ku baxo marka yaa gacan idinka siinaya markaasi anaga jaaliyad ahaan waxaan ku talagalnaa markasta inaan ku talagalno jaaliyadda dadka ku nool waxyaabaha aan ka helno tabarucaad iyo inaan ka qadaman dad hadda nagu taakurdeen nagu jirmada laakiin iskeena ayaan isu maamulnaa waan gartay injineer Abuukar adigoo mahadsan ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa caawa iyo gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Riyaad ee wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaan u soo jeedinaa dhammaan jaaliyadda Riyaad sida wanaagsan ay uga shaqeeyaan jaaliyadda xubnaha jaaliyadda ku nool meel kasta ay joogaan waxaan aad iyo aad ugu soo maaragtay ammaan halkan ugu soo jeedinayaa kooxda sportiga iyo kooxda fanka kooxda sportiga oo markasta tartamada qayb libax ka kooxda fanka oo ayana maaragtay qayb libax ka ugu horeeyo Maxamed Jaciilo iyo Qoorneere iyo Cabdiqaadir Marsaal
iyo cabdimuciin oo mar kasta nala taagan fanka xagga isboortiga waxaan aad ugu mahadcelinayaa awasdaashana balaag samatar aqoy xagga gabdhahana ayagana kaalin libaax ka qaata aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya ugu horeysa mari nuur xaa cumar faadama dhagacase iyagana aad baan ugu celinaya dhammaan xubnahan inta kusoo koobi karin waxaan halkan maaragtay fariin gaara ugu dirayaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay min maaragtay aad midowdaan inaad maaragtay kaalin libaax aad ka qaadataan amniga maanta soomaaliya magaalada xamar ka soo iftiinay inaad xoojisaan oo qof walbaba uu mas-uulka yahay amniga magaalada iyo meel kastaba in kaalintiina ay kasoo si wadankii horumar iyo baraari iyo ammaan loo gaaro mudane injineer abubakar sheekh cabdiraxmaan yaaqshiid guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayuu kaasi ahaa mudane injineere aad baad u mahadsan tahay waa mahadsan tahay mid wanaagsan iyo maaragtay guulaada rajida insha Allah waad mahadsan tahay